madashani oo ay ku sugnaayeen wakiilada jaamacadaha ay wax ka bartaan ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda ayaa waxa shir gudoominayay gudoomiyaha ardayda qaranka Soomaaliyeed ee dalka Uganda Cabdulqaadir Cumar Cabdulafiidka. kulanka ayaa looga hadlayay ajandayaal dhowr ah waxaase diiradda lagu saaray suurtagalnimada tirokoob rasmi ah oo lagu sameeyo dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Uganda. xubnaha madasha ku sugnaa ayaana dood iyo falanqeyn ka yeeshay fulinta ajandayaashaasi. haddii ay dhacdo in xafiiska uu shaqeynayeen doorashadiisa ama systemka uu ku yimid dadka doortay ama gudiyada u yeeray doorashada ugu yeeray inuu gudoomiyaha jaamacadaas Seton University dooran la inuu helo laftigiisu soo ogaado halka ka ogaado marka waa system fudud walaalayeen qaar way hayaanba oo tirokoob ku hayaan dadna waa ay fududahay oo jaamacaddu waday branch kala duwan leeyihiin waa laga inay caqabad yar xoog ay ku tago kala fog yihiin kambasyadu laakiin wixii kala jaamacada yihiin anigu kala jaamacadda hadda intee gaan maahane diiwaangelintooda guud waa haya registration waxyaabo ku guuleystay kamid ahayd oo waa haystaa hadda alxamdulillah ardayda jaamacadda ugu soo beertinta keen oo sanad walba waa sameeyay registration cusub haddana waa haystaa alxamdulillah tirkoobkaas oo kale u baahan tahay anfacaya jaamacadda ka fanish meeqa arday ka jirto oo Soomaaliya oo wax barato maxay kala bartaan ma master bay dhigtaan ma badge bay dhigtaan ma foundation bay dhigtaan. intaasi kadib wakiilka ardayda qaranka Soomaaliyeed ee dalka Uganda mudane Cabdulqaadir Cumar Cabdulafiidka ayaa wakiilada jaamacadaha ku amaanay hawsha ay u hayaan ardayda waxa uu bogaadiyay gudiyada dardargelinta tirakoobka ardayda Soomaaliyeed. marka hore waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo runtii hawsha wanaagsan ee u haysaan ardayda Soomaaliyeed ee aad runtii gudoomiyaasha ugu tihiin ama aad ku matashaan jaamacadaha. waxaan aad u soo dhaweynayaa walaalkay Maxamed ka Foundation University walaalkay Victoria University ka socda oo runtii almost hadda number fiican wax fiican oo lagu farxaa in la wadaago ah inay la socdaan cadadkii ardayda halka jaamacadda wax ka baranaysa. insha Allah waxaan idinka markaa codsanaynaa inaad si dardargelisaan oo gudiyada jaamacadihiina aad arintaas la wadaagtaan oo aad dardargelisaan hawshaas iyada ah in tirakoobka cadadka ardayda jaamacadaha mas'uuliyadda ugu tihiin ardaydeena Soomaaliyeed inaad soo ogaataan oo tirakoobkii guud gudoomiyaashii adikoo wakiilada ah in tirakoobka sidaas oo runtii inoogu bilowdo wixii maanta ka dambeeyo insha Allah ayna ka wada shaqeyno. ugu dambeyntii Bakar Cali oo ah gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda KIU ayaa warbaahinta la wadaagay qodobadii shirka ka soo baxay. kulanka waxaa looga hadlay saddex qodob. qodobka koowaad wuxuu ahaa inay isbartaan gudoomiyaasha ardayda Soomaaliyeed iyo dalladda ardayda qaranka Soomaaliyeed sidoo kale inuu noqdo kulan looga hadlayo qodobkiisa labaad ahaa wada shaqeynta sida u yeelan lahayd gudoomiyaasha ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda iyo dalladda ardayda qaranka Soomaaliyeed. sidoo kale wuxuu ahaa arrimaha tirakoobka oo qodobkii saddexaad ugu muhiimsanay oo laga hadlayay ay ahayd maadaama la rabo in ardayda qaranka Soomaaliyeed meel waliba ay joogaan inay maaragtay la sameeyo programka one man one vote ah. runtii aad aan ugu faraxsanahay wuxuu ku soo dhamaaday si sharaf leh oo qiimo badan oo guul ah. gudoomiyaashu intii ay fikradooda iyo karaankooda ahaayeen waxay ugu warbixiyeen wixii xog ogaalnimadooda ah ay ka hayaan systemka ardayda dalka Uganda. sidoo kale waxay gudoomiyaashu iyo dalladuba isla soo meel dhigeen oo maaragtay si fiican uga niqaasheen sidii loo wanaajinayo xiriirka ka dhaxayda ardayda midowga qaranka Soomaaliyeed iyo sidoo kale ardayda wax ku barata dalka Uganda. aad aan ugu faraxsanahay inuu xiriirkan noqdo mid joogto ah. arintan ayaa noqonaysa bilowga balan uu hore u shaaciyay gudoonka midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed ee dalka Uganda Shaafici Cusmaan Cali codka bariga Afrika magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda.